السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالنتينا iyo كمبيوترka dabcan casharadii remote assistance aan ku jirnay computerkan fadhiyo waa Windows 8 dabcan waxaan wacday computer Windows 7 waxaan isku dayaynaa insha Allah kan waa mousekeyga markaan joogo Windows 8ka computerka kalena mousekiisa halkaas naga dhigay soo noo wareerin كليك مركان انت كسيا كمبيوتر مركا ريكوست uga sugaya control computer install markaan dhaho kadibna wuxuu leeyahay yes kadib hadda bay ii banaan tahay inaan maaragtay computerka waxaan doono ku yeela ama aan saadooniya computer saa la soconaba new hardware ku xirnay waxaan rabaa inaan printer install halkan ka sameeyo printer add device aan tagi doonaa haddii ilaahay yiraahdo kadib waxa way printerka rabnaa computerka lagu soo daro kanay ahayd already lagu soo daray ujeedadan leeyahay waxay tahay computerkaas kale waa jeegaraynaa printer set properties tag printerkan marka wax walba is okay waxaan rabaa printerka marka inaan ka dhiga sharing sida share printer loo sameeyo share printer aan leeyahay apply and done printerkan waxaad ka bilowday gacan soo fuulay waa la share gareynaa sida halkan kaaga muuqato waa computerka koowaad marka waxaan soo binayaa remote assistance iska dhigaya kana hoosan dhigaya computerka gudihiisa hadda ka qabanayo invitationada inta ii saaraysa oo muuqataba invitation isoo dir invitation isoo diray marka waxaan soo binaynaa waxaan tegaynaa wax lagu magacaabo midig ku dhuf halkaas control panel aan tegaynaa kadib control panel waxaan ka dooran doonaa hadduu ilaahay yiraahdo hardwareka markaan tagnaa sorry waxaan tegi doonaa add few add devices takalkan wax printer ku jira ma lahan marka waxaan leenahay add device shaygan kusoo darayna wuxuu yahay uu fiirinaya computerku ka raadinaya device-ka noocu yahay not finding waxaa raadinaysa ma helinu yiri kadib waa yara sugaynaa help nala aaday help ma rabno hardware aan sonisan ku laabano halkaasaan tegaynaa add printer setup mousekeyga aada u socdo printerka marka haddaad taqaano hadduu soo helo ay computerka kale ka xiran tahay is alright hadduuse soo helina gacan baynu ku gelin doonaa insha allah waxaad leedahay printer listigan yar waxaa TCP port ma ugu soo daraysaa bluetooth ma ugu soo daraysaa local print ma ugu soo daraysaa annaga waxaan qoraynaa marka first waxaan leenahay computer namekaas waxa waaye lagu magacaabaa danta guud waxaan ku daraysaa marka printer name haddaa printer nameka aqoonin browser leedahay haddii local printer device uu jiro halkaan ay soo qabanaan okay trictan suubinaa waxay tahay waxaan ku laabanayaa kan ku laabo invitationkaagii no ayaan ku laabanayaa maadaama computerkaan la wareegay
printer nameka waxa waaye markaan fiiriyo printer nameka wuxuu ahaay haddaan si fiican fiirina HP oo capitala desk HP desk jet markaan qoray isla markii buu soo qabtay mujeedid kadibna waxaan leedahay next kadib next aan leenahay hadduusan troubleshooting dhicin dabcan waa inuu soo helay looking for drivers wuxuu raadinayaa siyaanta kaaga muuqataba driverkeeda ya kadib radio lagaa dhigaa printerada markii la suubinayo laba xaaladood waay network printer iyo waxaa lagu magacaabaa local printer first computerka kuwaad printerku install garay second computerka labaad ay imaanaysaa sida kana fadhiya windows 8 waxaad leedahay halkaasaa ka tegaysaa add printer local printer maahine network printer waxaa kusoo daraysa kadibna processkan u qaadanayaa intaas ayaad samayn doontaa haddii allaha awoodda leh u yiraahdo iyadoo qoraalna dabcan cashar ahaan oo qoraala shuruudaheeda waa soo gelin doonaa haddii allah awoodda yiraahdo kolley tutorialka ma ka fiirin doontiin insha allah ama websitekeeni ama channelka aan ku leenahay youtube ayaad ka fiirin doontaan haddii allaha subxaanahu wa tacaala uu noo ogolaado ilaahayna waxaan ka baryaynaa idinka iyo anigaba inuu cilmiga noo zaa'idso walaal kastoo wax ka faa'iidaysanaa ilaahay isagana inuu khayr siiya annaga dhammaanteena adduunyo na xafida aakhirana kuwii jannada ilaahay geeya naga dhiga dhammaanteen walaaladeydu marka waan sugaynaa wuu yaro socdaa wuu socdaa waxaan sugaynaa in yar oo videoga ka laaban oo ah checking windows update maybe takes a while intaasay qaadanaysaa waa iska sugaynaa kadibna waxaan rajaynaynaa inuu processkeeni soo gabagabo qaybtan waa qaybtii network printer qof kastana u baahan yahay waxaa muhiim ah qofka muslimka inuu markaad guriga aad computer ku haysato waxaad u baahan tahay printer homeworka ku daawacanaysaa waraaqaha ku daabacanaysaa waxaa dhici karaa inaad travel galayso amaad safar tahay ood u baahantahay inaad tigi daabacato waqti dambe sidaas daraaddeed guriga waa inuu printer ka mid ah ku yaala waxaa dhici karaa marka hal computer ay ka badan inaad haysato haddii hal computer haysta maba u baahnid baa tallaabooyinkan aan qaadayna automatic aadkan kuwaad ugu xiraysaa kadibna wax walba is okay laakiin waxaan la hadlayna waa qof hal computer ay ka badan haystaa kasoo qaad computer haystaa aabihiia tahay iyo hooyadii computer bay haystaan caruurtiina computer kale haystaan marka waxaa rabtaa carruurta inay iskuolkii homeworkii daabacdaan ama casharo ay u baahan yihiin iyo wax lamid marka waxay kaaga baahanaysaa taas waqti marka sida ugu sahlan aad u samayn karto waa sidan oo aad u gaari kartaan wixii aad raadinaysa marka waa wax loo baahan yahay runtii xaqiiqatan oo qof kastana ay waajib ku noqonaysa qof kastana waxay ku noqonaysaa waajibay ku noqonaysaa
marka waa muhim wa aad baa loogu baahan yahay arrintaas sida halkan kaaga cad marka waxaa la yidhi printer is installed waxaa leedahay next sidaas default aa leedahay kadibna finish aa leedahay waa qaabka ugu fudud ood printerkaaga aad usoo heli karto ama maaragtay aad u tegi karto ayaa laga rabaa aada u programmeyn karto waana muhim marka halkaas riixdo waa in printeradii soo baxaan printerka meesha yaala waa inuu soo baxo waa kaas meeshaasu yaala waa soo baxay marka kaasuu noqonaya marka qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu isku dayo sidii printer u sameyn lahayd loona dadaala insha allah casharkan waa casharkan ugu talagalnay how to add printer local printer anigoo computerka labaad ka galnay saad la socoteen ba anigoo ugu yeeranaya remote assistance loo soobiyeyna cashar koowaad ayaan hore u sameynay waxaad kala xiriiri kartaa websitekeena intaan ku gaarayna casharka cashar xiga waxaa idinkaga tegay amaano allah